بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 548 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والطبراني في الأوسط، والحاكم في المستدرك، والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 17kii bishii 12aad dulxija sanadka 1442, isla markaana waafaqsan 27kii bishii 7aad sanadka 2021. waxaanu ku jiray awalan waxaad ka raadli ahaanaysaan labadii maalmood ee darsigu naga baaqday oo axaddii iyo isniintii labadaa maalmood waxoogaa waan fahmo darsaday, waana xanuunsaday, waan qandhaday, xabeeb aad u culusna waa i haysay, maarata aminka maan qumaati iga bixin, mana garanayo waxay tahay. insha allahu tacaala bal aan soo ducayno. hadda laakiin waan roonahay, alxamdulilah, caafimaad hadda waan roonahay, dacfi iyo tabaryar mooye hadda aad baan u fiicnahay. marka dacawaatikum insha allah. intaa kadib, ikhwati filaahi, waa kaanu dhammaynay 10kii dilxija barakada badnayd. weli dilxijadii baanu ku jiraa. waxaan nidhi inteena mawduuc kale u gudbin, bal inaanu 2 iyo 3 xadiis waxay noqotaba inaan ka qaadano. cinwaanaanu ka dhignay ahmiyat alcamal asaalixi wa fawaa'iduhu. camalka saalixa ahmiyadda iyo uu leeyahay iyo fawaa'idiisa. hal xadiid baanu qaadanay, maantana xadiidkii 2aad ayaanu qaadanayna oo ku saabsan ahmiyat alcamal asaalixi wa fawaa'iduhu. camalka saalixa ahmiyadda uu leeyahay iyo fawaa'idiisa, maaragtay uu lilmuslimi u leeyahay, qofka muslimkaa fi laakhira, adduuniya aakhira labaduba uu wanaag u lehay. inta markaanu ka gudubnay xadiidkan, waa xadiid xasana. waxaa soo saaray alimaam ibnu xibaan kitaabkiisa saxiixa, sidoo kale tabaraanina awsadka ayuu ku soo saarayaa, sidoo kalena abu cabdillaahi alxaakim musadraka iyo keyrkoodba way soo saarayaan. xadiidku waa xadiid xasana. sheekh albani raxmatullaahi calayhi xasan buu ka dhigayaa dhowr meeloodba. meeshaanu ka soo xiganay oo koobaad saxiixu tarkiib watarhiib, raqamka xadiidka 3561 iyo irwaa'ulkhaliil, labaduba xasan buu kaga dhigayaa. xadiidka xasan waxaa looga dhigay kalaam baa ku jira hadala. raawi la yihahdo maxamed ibnu camrin ibnu calqam ibnu waqaas alleythi, ninkaasoo mutakalimu fiiha oo laga hadlay culimmadu, maarata ragga muxadisiintu ay ka hadleen. ninkaasaa ku jira, marka xadiidkiisu xasan weeye ayay leeyihiin. marka saa darteed ba xadiidku xasan looga dhigay. isagoo mawquuf ana xadiidka wuu soo aroray oo abu hureyre ku jooga. ibnu abi shayba ayaa kitaabkiisa musanafka ku soo saaray, cabdirasaaqna kitaabkiisa musanafka ayuu ku soo saarayaa. idan xadiidku waa xadiid xasana weeye. inta markaanu kaga gudubnay xadiidka xukunkiisa iyo maraajicda xadiidka ku soo arooray, xadiidka macnihiisa, abu hureyre wuxuu leeyahy radi allahu tacaala canhu wa ardaah can inabiy sala allahu alayh wasalam. nabigu wuxuu yidhi
ina almayita meydka qofka meydkaa idaa wadica haddii la dhigo fii qabrihi qabrigiisa markii la dhigo innahu yasmacu wuu maqlayaa khafqa nicaalihim kabahooda shanqarhkooda ayuu maqli xiina yuwalluuna markay jeedsadaan xiina yuwalluuna mudbiriina markay jeedsadaan oo dhabarka u duwaan oy asaga ka noqdaan ayuu kabahooda shanqarhkooda iyo jaanqaadkoodu maqlahayaa fa in kaana hadduu yahay meydka meesha la geliyey qabriga mu'min hadduu yahay oo camal fiican samayn jiray kaanat isalaatu salaaddii waxay noqonaysaa cinda ra'sihi madaxiisa ayay ag istaagaysaa salaaddii baa madaxiisa istaagaysaa wa kaana siyaamuna soonkiina wuxuu ahaanayaa can yamiinihi midigtiisu soonkuna ahaanaya wa kaanat izakaatuna can shimaalihi zakadiina bidixdiisay noqonaysaa shimaalkii bidixda ka noqonaysaa wa kaana wuxuuna ahaanayaa ficlu lkhayraati wanaaggii samayntiisii oo min asadaqati sadaqa ah iyo wasalaati salaadii iyo walmacruufi wanaaggii iyo walixsaani ila annaasi dadkii wanaagga loo samaynaya waxaasoo dhan oo khayrana cinda rijlayhi labadiisa lugood ayay istaagahayaan sidaasaa laiskugu maaragtay hayndaabayaa qofkii salaaddii baa waxay istaagaysaa maaragtay madaxa soonkii baa wuxuu istaagi midigtiisa zakadii baa bidixdiisa istaagi khayraadkii kaloo dhanna waxay istaagayaan labadiisa lugood hortoodii istaagayaan fa yu'taa waxaa looga imanayaa min qibali ra'sihi xagga madaxa ayaa looga iman fataquulu salaatu salaaddii baa waxay dhihi maa qibali madkhalun dhinacayga wax soo gelitaan leh dhinacayga wax soo gelitaan la dhihi ma jirto wax xaggayga oo laga soo gelaya malay dhihi uma yu'taa waxaa looga iman can yamiinihi fayaquulu siyaamu baa wuxuu dhihi soonkii maa qibali madkhalun dhinacayga wax soo gelitaana ma leh uma yu'taa waxaa looga imanhayaa can yasaari bidixdiisa fataquulu zakaatu baa waxay dhihi maa qibali madkhalun dhinacayga wax soo gelitaana ma leh uma yu'taa waxaa looga imanaya min qibali rijlayhi fayaquulu wuxuu dhihi ficlu lkhayraati khayraadkiisa ficilkii samayntiisii oo min asadaqati wasalaati walmacruufi iyo walxisaani ila annaasi intaasoo dhan ba waxay dhahayaan maa qibali madkhalun dhinacaanaga wax soo gelitaana ma leh fa yuqaalu lahu waxaa loo dhihi markaa ijlis fadhiiso fa yajlisu wuu fadhiisanayaa xadiidku wuu dheeraa maaragtay intaanu oga baahnayn ama aan maanta rabin aan ka qaadanaa intaas ikhwat alislaam waliimaan xadiidkan wuxuuna tusinayaa ahmiyada uu camalka saalixa u leeyahay qofka muslimka wa khaasatan qabriga iyo aakhira markii la tago waxyaabaha uu maaragtay sida uu qiimaha badan u leeyahay qabriga laga soo bilaabo iyo wixii ka dambeeya idan camalkii wanaagsanaa mar hadduu sidaa u qiimo leeyahay waxaan rabaa inaan idhaahdo oo naftaydii naftiina baan usoo gudbiyo oon ku booriyo mar hadduu camalkii saalixaha uu sidaas kuu badbaadinayo haddee wakti barakaysan haddaad joogti iyo wakti kale haddaad joogtiba inta ay nafta kugu jirto intaad dadaali karti inaad dadaashi ayaa lagaaga baahan yahay intaad dadaali karti xadiidkan wuxuu noo soo koobay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wassalaam qofku markuu dhinto dabcan qofka mu'minka weeye markuu dhinto qabriga la dhigo ama mu'min iyo keyrka wuxuu doonaada markuu dhinto qabriga la dhigo maaragtay ay ka soo gadoomaan shanqarhkooda iyo kabahooda jaanqaadkoodu maqlahayaa markay ka soo noqdaan qabriga markii intii la dhigo ciidda lagu gediyo ay dadkii saa u soo noqdaanba kabahoodii shanqarhkoodii iyo jaanqaadkooda wuu maqli marka hadduu mu'min ahaa idan muslim iyo gaal waa isku mid halkaas shanqarhkii dadkii xabaalay wuu wada maqlahayaa markaasay kala baxayaan hadduu mu'min ahaa salaaddii madaxiisay istaagaysaa soonkiina midigtiisu istaagi zakadiina bidixdiisay istaagi ficilkii khayraadkii oo wanaaggii uu sameeyey oo dhan oo sadaqa iyo salaadii iyo macruufkii wanaaggii iyo ixsaankii dadka u samaynayey iyo khayraadkii oo dhanna lugihiisay istaagayaan haddii xagga madaxa looga yimaado salaaddii baa dhihi xaggayga meel laga soo gala male haddii xagga midigta looga yimaadana soonkii baa dhihi xaggayga meel laga soo gala male haddii xagga bidixda looga yimaadana zakadii baa dhihi xaggayga meel laga soo gala male haddii lugaha looga yimaadana wanaaggii iyo khayrkii iyo sadaqadii iyo salaadii macruufkii iyo wixii ixsaankii oo dhan ayaa dhahaya dhinaca anaga meel laga soo gala male markaasaa laleeyahay fadhiiso
markaasuu qofku fadhiisanayaa. halkan waxaanu ka qaadanay ahmiyadda uu ahmiyadda uu camalka saalixa iyo khayrku wanaagga uu qofku sameeyo ahmiyaddu u leeyahay shaksiga uu u leeyahay iyo hadhow badbaadada suu ilaahay ugu badbaadinayo. waxaa isweydiin leh hadduu qofkii muslim doona ha ahaado, laakiin hadduusa salaad tukan jirin ama zake bixin jirin ama soon uusa soomi jirin ama khayraad iyo wanaag uusa samayn jirin, haddee waxaan oo dhan ma helayaad, cid difaacda ma helayso. meel bannaan buu ku soo dhacayaa, wax difaacaya male. laakiin salaadan iyo soonkan iyo zakadan iyo wanaaggii khayraadka uu samaynayo o dhan difaacanay difaacayaan. waa kuwii adduunku kula imanhaya wey, waa qofkii la imanhaya weyan, qofkaasay difaacayaan. qof aan la iman jirin waxba ma difaacayaan, waxay u tarahayaanna ma jirto. intan baa naloo sheegaya wanaaggii aan la sheegin oo dhanna waa lamid weeye. intaasoo wanaag oo xadiidka uusa sheegin baa jira. wanaagyaalkii kale oo dhanna waa lamid weeyaano intan kelia difaaci maya, wixii kaleo wanaagyaalkiina waa lamid weeye. maxaa yeele alimaamu tabaraani riwaayadiisa wuxuu khaas leeyahay lafdi kalaa wuxuu ahaa uu dhihi yu'ta arajulu fii qabrihi, ninkii ayaa loo imanhayaa qabrigiisaa loogu iman maarata, ama yu'ta waa la keeni arajulu ninkii fii qabrihi baa loogu imanhayaa, ama yu'ta waa la keeni arajulu ninkii fii qabrihi qabrigiisi baa la keenhayaa. faidaa utiya markii looga yimaado min qibali ra'sihi, xagga madaxa markii looga yimaado, dafacatu waxaa difaacaysa tilaawatu lqur'aani, qur-aankii akhrintiisi baa difaacaysa. qur-aankuu akhrinhaya baa ka difaacay xagga madaxa. waidaa utiya haddii looga yimaado min qibali yadayhi, xagga labadiisa gacmood xaggooda haddii looga yimaado, dafacatu waa difaacaysa asadaqatu, sadaqadii baa difaacaysa. waidaa utiya haddii looga yimaado min qibali rijlayhi, labadiisa lugood xaggooda haddii looga yimaadana, dafacahu waxaa difaacaya mashihu socodkiisa ila almasaajidi, masaajidda uu u soconayay ayaa difaacaya. idan halkana waa ziyaado kale oo qofku qur-aankii akhriskiisi baa difaaci, waxaa difaacaya sadaqadii baa difaaci, waxaa difaacaya salaadii uu masaajidka u socday ayaa difaacaya. mashigiisii socodkii salaadii ku dhamee socodkii uu socday, mashihu ila almasaajidi, ilaana khayr buu ahaaye, socodkii baa khayr loo xisaabaya. mashihu ila almasaajidi, masaajidkii u socday ayaa difaacaya. idan intaasoo dhanba waa wanaaggii qofkii uu samaynayey asagaa difaacaya. saa darteed ikhwati filaahi, camalka khayrkaa qofku inuusan yaraysanin, wa in qalla inaad daa'imti ood joogtaysi ayaa aad iyo aad u khayr badan. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, waxyaabaha maaragtay ilaahay ugu jecel yahay maarata, ama acmaasha ilaahay ugu jecel yahay, maadaama saaxibuhu wa in qalla, waa wixii saaxiibkiisu uu daa'imo haba yaraadee. shayga khayrka inaad joogtaysi ooda weligaa ka cajisin, taasaa faa'iidadu ku jirtaa. idan halka waxaanu ka qaadanay maanta camalka khayrka ahmiyadda uu leeyahay iyo wanaagga iyo qiimaha uu leeyahay ayaa maaragtay xadiidka una tusinaya. xadiidka qeybtiisa kale, gaalkii iyo wuxuu la kulmayo iyo dhibaatada loo maaragtay ku dhacaysa ayuu maarata xadiid ka sheekeynaya. gaalku markii xagga madaxa looga yimaado, wax madaxiisa taagan ma jirayso. midigtiisa markii loo yimaado, wax midigta ka taagan male. bidixdiisa haddii looga yimaado, wax ka taagan male. xagga lugaha haddii looga yimaado, wax ka taagan male. idan dhinac kastoo looga yimaadaba baylaha weeye gaalka iyo munaafiqii iyo intii aana khayr samayn jirinba baylaha weeyaan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. wax madaxiisa taagan ama midigtiisa taagan ama bidixdiisa taagan ama lugihiisa taagan midna ma jirtuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. idan ikhwati filaahi, ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana waafajiyo, in maaragtay xaqa inuu natuso, nuuna irtaaqa xaqa raacitaankiisa. hal mar baan xadiidka aan akhrintiisa ku celinayaa. alxadiiثu 548 can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى allahu alayh wasalam qaal ina almayita ida wudica fi qabrihi inahu yasmacu khafqa nicaalihim xiina yuwaluuna mudbiriina fain kaana muؤmina kanat الsalaaةu cinda ra'sihi wa kaana الصiyaamu can yamiinihi
وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس. رواه ابن حبان والحاكم والطبراني في الأوسط، والحديث حسن. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.